ومقال cusub oo ku saabsan koorsadii ahayd barashada web development oo lagu baranayay qaabka loo sameyn karo website-yada. Maanta muuqaalka wuxuu ku saabsan yahay toolska aad u baahan tahay inaad haysatid markii la joogo inaad sameysid website. Iyo toolsyo badan aan kuu sheegi doonaa qaar oo kamid ah toolska loo baahan yahay markii la design gareynayo website iyo markii la qorayo website. Muuqaalkan marka wuxuu diiradda saarayaa design haddii aad baranaysid ama haddii aad doonaysid inaad barato designinga ama haddii aad doonaysid inaad noqoto web developer kan codeska qoro. labadooda barnaamijyada ama toolska ugu muhiimsan lagama maarmaanka ah in aad haysatid ayaan kuu kala sheegi doonaa. Haddii aad muuqaalkan ama YouTube-kan aad ku cusub tahay, isku day inaad subscribe saarto. Okay, marka haddii aan gudubno muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay tools iyo barnaamijyada dhamaantood oo u baahan tahay inaad haysatid. Marka koow waxa ah markii la joogo graphic design waxaan ku soo sheegaya ama ku soo qaadanaya muuqaalkan laba program oo caansan markii la joogo designinga, ha noqdaan website-ka ama document wax walba ha noqdaan oo design u baahan la adeegsado oo qof kasto designer uu haysto ay tahay. Waa koow waxa ka ah Sketch waa program aad iyo aad khatar u ah oo loogu talagalay in lagu design gareeyo ha badnaato apps-ka iyo website-yada. Sketch-ka marka website-kan sida uu soo degi lahayd dhamaantood waxaan ku dhigayaa description-ka video-gan hoostiisa. Marka Sketch waxa awood u leedahay inaad si fudud waqti yar kooban aad ku design gareysid website-yo ama wax walba si fudud ayaad ku heli kartaa aadna ku isticmaali kartaa. Haddii u baahan tahay marka warbixin intaas ka sii dheer oo marka waxaad tagaysaa description-ka video-gan website-ka ayuu si toos kugu keenayaa website-kan. Marka Sketch waxaad ku heli kartaa marka qiimo jaban waa $99 haddii aad rabtid mid casri ah oo aad tahay graphic designer weyn, ama free baad ku heli kartaa oo maalmo kooban ay si free ah kugu siinayaan. Marka Sketch wuxuu ku siin karaa marka extension oo loogu talagalay markii la editing gareynayo ama aad design gareynaysid, ama wuxuu ku siinayaa in aad ku baran kartid sida qaabka loo isticmaalo Sketch-kan application-kan. Marka community-na waxay tahay in aad dadka la xiriiri kartid, support-gana aad caawinaad wax weydiisan kartid. Barnaamijka xiga waxay tahay badnaa la adeegsado in tahay mid aad u caan ah oo magaciisa la yiraahdo Adobe Photoshop. Marka waa program casri ah oo badnaa graphic designer la'aantiisa wax ma qaban karaan. Adobe Photoshop dadka dhan waa wada yaqaanaan, faahfaahin dheeri uma baahno. Waxaan ka sameynay asigana koorsooyin, description-ka video-ga hoostiisa ayaad noo soo codsan kartaa haddii aad u baahan tahay koorsooyinkaas oo kaga hadlayo Adobe Photoshop iyo dhammaan creative cloud-ka kuwa hoos yimaado sida Premiere Pro iyo video editing iyo After Effects dhamaantood. Marka asigana Adobe Photoshop waxay tahay inaad ku isticmaali kartid designinga, ha noqoto website si loo habeeyo website loo design gareyn karo waa lagu habeyn karaa. Marka waxaa jiro cashiro iyo muuqaalo oo kugu caawin kara waxaas camal. Aniga waxaan kuu soo dhigay marka halkaas description-ka video hoostiisa. Koorsadan ama video-gan wuxuu ka mid yahay koorsadii ahayd web development 101. muhiimadda waxaan saaraynaa anaga ay tahay coding markay timaado designing waxaas ma doonayno, development ayaan ay tahay muhiimadda koorsadan. Marka haddii aan ka imaadno designing aan ka soo tagno, waxaa jira marka laba program oo aan soo qaatay inay yihiin kuwa ugu caansan oo lagu habeeyo oo lagu design gareeyo oo lagu develop gareeyo marka ay timaado coding website-ka. Kuwa waxa ah Sublime Text waa mid horta ayna caadi ahayn, waa way yaab horta aniga.
casri waayo kii horta asiga featurekiisa iyo dhammaantiisa marka mid ayaan u arki doonaa koorsada intaan ku guda jirno. supplement text sidee u soo degi kartaa marka saan u joogtid kaliya waxaad dhehaysaa dowladka marka linkigiisa ama supplementtext.com waxaan kugu siinayaa description video hoostiisa booqo halkaas ka soo deg. laakiin haddii aad u baahan tahay mid kale waxaa jira practice lahayo. practice ma mid casri ah oo kan ayaan aniga isticmaali doonaa oo ka fudud inta koorsada socoto waan isticmaali doonaa. sidee u soo degay markaas aad bay u fududahay dowlad practice ayaa dhufanaysa markii uu linkigan practice.io oo ku keeno waxaad ku dhufanaysaa bas dowlad practice-kaas. marka ku soo dego waa ku soo shumanaysaa sida loo installation waa ka sameeynayaa. marka kan ayay tahay marka aniga midka aan adeegsan doono koorsada inta ay socoto oo aan ku qori doono developmentiga ama ha noqdo website aan ku dhisi doono. marka saa u joogto practice.io-ga iyo muhiimadiisa wixiis dhan maxaad ku eegi doontaa muuqaalka dambeeyo. graphic design waxaas aniga diirad saarayno sababtoo ah waxaa jira koorsooyin kale aan ka sameynay gooni ah. ka supplement text iyo practice.io ayaan ku adeegsan doonaa muuqaalka inta aan ku wada jirno ama koorsada inta aan ku wada jirno. marka practice waa soo degsanaysaa haddii aan ku tuso soo degsato dowlad markaa ku dhufato wuxuu ku keenayaa linkiga. marka linkigaas ayaad soo dowlad gelisanaysaa computerka ayaad ku shubaysaa Windows 8 ahaado Windows 10 Windows 7 waa ku isticmaali kartaa. marka koorsada inta socoto waa ku wada eegi doonaa dhamaanteena. muuqaalka xigan wuxuu noqon doonaa practice iyo qaababka loo isticmaali karo qaababka loo heli karo.